gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Abukaata Cabdullaahi Ciidi Dilka Xanaf oo hadal ka jeedinay munaasabad lagu qabtay xarunta maxkamadda sare ayaa ka hadlay khilaaf bulshada ay hadal hayaan oo u dhaxeeya garsoorkii madaxda dalka ugu sareysa. Ilka Xanaf wuxuu ka hadlay dhaliilaha garsoorka loo jeediyo. waa wax culus ma aha kaliya xagga diinta islaamka ma aha sharcigan kale caadiga qaynuunka ibal qofka dameerkiisu siinayo يعني أنا أقول يا أبا دمير كيس سكمال كيس كل عين ما كسب على شيء سادرت ما أنت بدن كل يبغى حاجة من هاي كرسور كوسقط أنا مدحها والله يا أبا إني مدحته ربطه وحنا أنا وحكنا وحنا عين سكدونين يري لهاين لقى يا أبا إني شعران لهاين إذا أنا جاهنا ما عند الكرسور كمان أنت شوكت مو عند كلايلي شوكتو والله ضيعيني ما يورد يشجعها يشجعها صدق أفرتاس دو الدولة ده هذا شوكتها شرتي هل تانا تانا لو بكونين كرسور يقول هذا اللي جوتشي يا جوتشو وين ورقنا ميرها لقى هذلا كرسور قاعد داري ما شفتو garsoorka waxa laga qabto inuu madaxda maalin istaago baarlamaanka la hadlay oo baarlamaanka la hadlay way garsoorka ma eegan karo I don't know garsoorka la sheegayo aan la eegan karin miyaa la baabiinaya waxa looga jeedaa dadka la doonaya laga saaro aniga cid wali ii timi golaha adeeg garsoorka iyo maxkamadda sare oo madaxda ka tirsan oo igu tiri waxa iyo halkaas qaldan أنا دعوتها يا صد قلد وقشيري وحكي قبته ما نعرف. dhinaca kale gudoomiye Ilka Xanaf waxa uu soo hadal qaaday sharci ahaanshaha garsoorka maamul goboleedyada Soomaaliya. war maxaa dawladda goboleed awoodda ay leedahay xagga garsoorka iyo garsooriyaasheedu ilaa maxkamadooda sare ilaa maxaa ahaay maxkamadooda ugu sareysa awoodoodu waa maxayta ugu hooseysa iyo maxaa dawladda federaalka ay leedahay waa xasab dawlad goboleed walba inuu joogo garsoore dawlad goboleedka ka tirsan iyo mid dawladda dhexe ka tirsan waa xasab inay joogaan labadaas laakiin waa maxay dastuurkeena waxaanu kala caday waa maxaa ay leedahay dawlad goboleedka awoodooda garsoorahooda waa maxay iyo dawladda dhexe waa maxay ilaa taa la helo garsoorka aan itiraafsanahay ee dalka hadda ka jira waa kan jira ee dawladda dhexe federaal Cabdinaasir Maxamed Ali Hon Cable TV Muqdisho.